السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قفك بني آدم كاسي وقوليستو وإنه هبيو أفرت تاير نفتيسو أي كل سنتهاي نلوشيسو أي كل سنتهاي أفرت تاير وحي كينان ويكا عاونيان هرمر كاغا تاير كواد إيا تاير كلابات كسدحادي كأفراد هذه إصدوا مرانا وحي كينيان دباتو aan si fudud idinku sheego qofka bini aadamka waxa uu ka nool yahay afar qaybood xiriirkooda inuu hagaajiyo haddii midba mid uu ka hormarana dhibaato ku imaanaysa tusaale ahaan xiriirka koowaad waa qofku xiriirka uu la leeyahay ilaahay haddii xiriirka ilaahay uu la leeyahay uu xumaado noloshiisa horumar ma gaarayso sidoo kale haddii xiriirka ilaahay uu la leeyahay uu ka hormariyo wax kale iyadana guul darro ayaa u imaanaysa xiriirka labaad waa xiriirka uu la leeyahay naftiisa waxaan ula jeedaa waxa weeyaan wax kastoo naftiisa dhibaato ku ah inuu ka fakaro waxa kaliya uu eegaya waxa weeyaan miyay xumeynaysaa xiriirka ilaahay iyo adiga idinka dhaxeeya haddii aanay xumeynayn shaqadaada qabso naftaadana horumari haddii laakiin aad naftaada ka hormarsatay ilaahay waa dhibaato xiriirka saddexaad ama taayirka saddexaad ay tahay in la adkeeyo waxa weeyaan xiriirka ka dhaxeeya adiga iyo dadka aad la macaamilaysid bini aadamka ayaa ka mudan waxyaabaha kale marka xiriirka adiga iyo dadka idinka dhaxeeya ilaali haddaba laakiin ha ka hormarin xiriirka adiga iyo dadka idinka dhaxeeya kan kala dhaxeeya naftaada oo wax naftaada aad u samaysid ama aad u samaynin dadka ha u samayn tusaale ahaan adiga oo aan u wanaagsanayn ehelkaaga iyo naftaadii u wanaagsanayn iska dhaadhicinta dadka ha u samayn arrintaas taada ayaa ka horeysa tinta dadka ku xigta qodobka afraad ama taayirka afraad waxa weeyaan xiriirka adiga iyo walxaha ashyaada idinka dhaxeeya laptopka mobilka gaariga diyaaradda guriga lacagta waxyaabahaas iyo adiga xiriirka idinka dhaxeeya haddii ashyaada iyo adiga xiriirka idinka dhaxeeya ay ka hormarto xiriirka adiga iyo dadka idinka dhaxeeya ama adiga iyo naftaada idinka dhaxeeya iyadoo ay kula weynaadaan iyadana guul darro ayaad la kulmaysaa mar walba adkee afartaas midba midka uu ka mudan yahayna ha ilaawin aan mar kale kugu celiyo ilaali xiriirka ilaahay iyo adiga idinka dhaxeeya hubi xiriirka adiga iyo naftaada idinka dhaxeeya inuu wanaagsan yahay adkee xiriirka adiga iyo bini aadamka idinka dhaxeeya sidoo kalena adkee adiga iyo ashyaada ama walxaha substance-ka iyo adiga xiriirka idinka dhaxeeya midna mid ha ka hormarin mahadsanid nabadgelyo